أصحابتي وأني وضع السلام يا قاسة مريكان أستراليا كندا هولندا سويدن كينيا إي صوماليا أدنى السلام يا ريت تيك توك سؤالها يسوي ديسمبر والبا وان إن ورقة لكن جوابتي هذا فيلم كدمات كيس كدقيس أما كداب أن أب حوجا يروان صودا هاي ودكتور روسكي هولي هيجينا صودا مستعينو بهنا هاي وايه أب باي هو بقص لي ساميانا أبيه مركز كل هذا العقد أروس كون كل قيب سنة وحنكون ملينا نيو ونكسر ناتها لكن أروس كنت بالجارنا هوتيل كان تكور واللي بقول كان هذيك صودا حرته نقدتك ما لا صحت دتك ماشي تتضبحوا كليني وأذن إيه أروس معهن أنا يتضبحوا كلي يقوموا فيلنا إيه أروس كانوا والله بهايا محايلو دكتور رام دتكودن أنا جاي عندها نجوهايان لحظة بلاد وجودن بس وحكون مشغول سنة الديزاين خلاص فيلم وكوسة ميكر تسوى معنا هذا أنا جميع دك باشالة سنة رام وراديك موقتين ركاج اسكو جوجا حتى مرولبو أنا جاي أكو حلي مسؤولية ده ينقذنا يسمعهن حتى نقول شيء دون أديك ينقعمها كو جلسة سنة وهاللسا يا إلا أركز ذي وهاللسا وقفت جاري مركو كهالاب روزت ذي نعنت أي كسود بيت يا قشة كذا روزت ما تجن إيرير كأي تجن تهاي أمريكا محن أقوى معده أنا طلبت هذا حرير توركو كحياة نيمي ما حد سمعني يا أخي واحد عايوان ما حين الرام بنو يا إيميل كوسو دتو وحنا رتايني كل أنتو كلا حال مرأة فيري وكاذبل وحما كلا دحي إيشيك وحما كلا دحي عدايا يا أخي مية إنا دفنت اسكودة وحي قال إيجا أمسكورك إيجا نهتابن هذا وإنا ذيك العديسة يا أخي محاربتا إنا نسميه تليفون ودير محاد هذا وحان كلها وعد دقس رام رام هجاج ويه بنو waxaan u maleynayaa lambarkan markaad aragto inaad aqoonsatay qoftaan aniga ahay haddaba mar labaad ayaan iska kaa barayaa aniga magacayga waana miisha babana waxaan ahay gabadha waraam gursaro aamus joog haddaba aniga ma aqaan laba qof oo kala hartay sabab ay mar labaad u wada hadlaan teeda kale adiga ninkan hadda wax idinka dhaxeeya ma lahan mana labaana mar walba inaad soo wacdo weliba aad tuugtuugto sidoo kale ninkan ma doonaa adiga inuu wax kula wadaago maxay aniga qiimahayga ayuu yaqaanaa hadalkan aniga kaligay kuma dhahay isaga xataa afkiisa waad ka maqli kartaa aad baad u mahadsantahay jekla sheegay ajacladan ku keenaa yaa tahay adigan kula hadlaaya yaa tahay yaase awood ku sii labtoobkayga inaad kala furto weliba emailkayga inaad fariin ka dirto hal mar le haddii aan ku dacweeyo ma la socotaa xabsiga inaad ku waarayso adiga waxaan islahaa waa canug maskiin oo ciyaal tuulo ah ee hamiga uu shaqada ka leeyahay ku caabi adigana guuxada ayaad ka dheeraysay haddii aanan aniga ahaan lahayn xirfadaada waxaad ku noqon lahayd waardiye waxaad samaysa ayaa uu madaxay xanuujinaayo arrimaha ii gaarka markaad faraha la soo gelaysa yaa tahay aniga waxba ogeyn ayaa teleefon ii soo dirtay walaashii ayaadna ila kulan siisay waxaan islahaa isku mid ayaa tihiin ani adiga isku mid miyaan nahay marka maraba wejigaaga inaan sii arko haddii aad sii taagnaatana waan kaa tegayaa shaqo ayaad u baahneed adiga si aad u guursato balse hadda maraba marxaladdan inaan ku sii jiro
inankayga maxaad mar walba sidaan waayo hooyo sida inankayga sidan haddaan ahay rama krishna wax magacan loo hadda nool maba jiraba hooyo inankayga maxaa qaldana sidii bishooga kaleetad u iftiimaysaa waxaa aad u wanaagsanaa leed hooyo Hyderabad inaanan teginba runtaa waa intaan noolaa weligay qof bini aadana sidaan dareenkayga uma aanan xirin laakiin maxaan sameeyaa banu waan jeclaha hooy jecel dhaba ayaanu qabo qoriya hooy macaanista jigarka u ku haysta runtii ii sheeg aabbo walaal haddii aan lahaan lahaa sidaan oo kale miyuu samayn lahaa ma aqaano inantaydii anigu markii adigoo saa igu dhalatay ayaaba waxaan ogaaday dunida inaan wax kale uga baahnayn ma og tahay hooyadaa mar walba aniga way eedaysaa waxay igu tidhaa wax wiil inooma joogo hadda ka aabba ahaan aan ku weyddiiyo waa maxay inantaydii dhibka ku haysta adigoo aan ku weyddiiya inantaydii dooqaagaad ku jahwareertay soo maha iishaa miyaa ku soo wacday aniga hadda waan cabsanayaa dadka maxay dhihi doonaan magaciisa ii sheeg raam krishna adeerkaa biji ma xusuusataa magaciisa raamaa krishna baa la odhan jiray asaga iyo magaciisaba way isla yihiin aabbo adeer guji waa nin aad iyo aad u degan raamaa krishna asaga xataa wuu degan yahay siduu yaha ayuuna u dhaqmaa raamaa krishna waa nin wanaagsan anigana sixna ayaanu la hadlay waana jeclahay aabbo qof walboo arkaana wuu jeclaanayaa dhibkaad sheegaysaa waa maxay inantaydii waad u tegaysaa waanad raalli gelinaysaa hadda halkaan ma jooga aabbe tanaali ayuu dib ugu laabtay yaa kugu meeshu joogo lama tegi karo meel kastuu joogo u tag una bandhig inantaydii waan ku aaminsanay anigu halo iisha isdiyaari maanta waan baxaynaa tinaali ayaana aadaynaa weliba hadda imminkaa waagu habarya inantaydii iska sug aabba waxaan ka cabsanayaa baanuudii hore inaan dib u noqdo shan daqiiqa ayay igu qaadatay 5 sano xiriir aan soo waday iyo ninkuu igala dhexeeyaba inaan ilaabo 6 bilood oo keliya nin aan aqaano ayaan asaga dartiisa habeen saqdhaxaa 300 kiiloomitir u jaraya qof walba oo ay arkaana aragtidayda ayuu igu xukumayaa maskaxiyan markii loo fiiriyo way saxantaa balse hadda jawi aan kaga fikiro kuma jiro fikir waxba isku daalin aniga booskaaga haddaan ku jiri lahaa sidaas samaysay ayaan samayn lahaa run ahaantii farxadda looma wada sidna qof walbaana waxay farxaddaada ku jirta ma garan karo halka qof oo farxaddayda waxay tahay yaqaana waa rama krishna asaga darteed safarkan uma gelin ee nafteeda darteed ayaan u galay
haydarbaad goormeed imaanaysaa adigu halkaa maxaad ka soo doontay waa maxay qaabkaad iila hadlayso maxaad si ii soo wici weysay ma doonaya inaan kaasii hoos shaqeeyo wax jawaaban ku hayana ma lahan keligii inaan ahaado ayaan doonayaa sidaa darteeda biliis waayahay waad ii xanaaqsan tahay soo maaha waayahay dhegayso iga raali noqo si xun ayaan kuula dhaqmay adigana hal erayoo xun iguma aadan jawaabin waxay ahayd taas inaan kugu qiimeeyo waxaad dhiiratiso ima dhin haddaba iska bax meeshaan isaga tag ilaa iyo hadda sidan miyaad iila hadlaysaa xataa haddii aan habeen saqdhaxaa adiga dartaa safarkan dheer aan u soo galay ma doonayo dareenkaaga inaan dhaawac u geysto sidaa darteed hadalkayga inaad maqashaa ku wanaagsan oo ku barya meeshaan isaga tag markii ugu horraysay aan kulmayna sidee ahayd qof faraxsan ayaa ahayd qof dabaxsan oo sabar badan ayaad ahayd qof walbana waqti ayaad la qaadanaysay waxaan u haystay inaad tahay qof qaasa xataa aniga si qaasa ayaan kuula dhaqmaayay mana aqaana inaad wax ka fahantay iyo in kale anigii soo fiiri muddo 2 maalin ayaan waddada ku soo jiray cuntada xataa waa iga degi weyse habeen saqdhaxa ayaan adiga haydarbaadkaaga imid cid ii sabartay ma jirin markii adiga lagaa reebo waxaad iga aragtay un ha igu qiimaynin waxaan ahay qof aad u fiican sharafteeda inay sare u kacdo ayaan jeclaa aniga waxaasoo dhan ban looma ka fikiro waxaan ahay nin iska daabacsan qof ii qalantay inaan guursado ayaan rabaa waxaan haystana farxad igula noolaato sidaa darteeda biliis hadalkaaga intaan yuusan ka badan fariinta aad iimaylkayga ka dirtay waxba ka daran dhaawacyada aad hadda ii geysanayso gabagabada sheekada adiga igama helin soo maaha xataa magacayga kama aadan helin waan xasuustaa inaad hore iigu sheegtay baan umatee qarniga hadda jira gabar lagu magacaabo maba jirto gabar yaraad rabtaa soo maaha hadda maxaan kuugu wacaa Rama Krishna adigii magacaaga waad isleedihiin hadalkayga maqal oo ku qanac banumati Rama Krishna labadana magac markii la isku leeyahay qurux waa ama ku wada qanacana labadana asxaabta waan wada salaamayaa qasdan reer Mareykan Minneapolis Canada Australia Norway Soomaaliya Kenya kulligina waan salaamay meel wada joogtaan waxaan inta si qaas ah ugu salaamayaa asxaabta TikTok aan ku nahanay friendsga musalsalka aad sugayseen runtii waa habeeyay copy strike midka ugu xumaa ayaa ku jiro waan isku habeeyay intii meel walba waan ka habeeyay marka dhibka jiro wadanka aniga aan joogo blog ayuu ka saaran yahay way ii sheegeen wadanka adiga ay joogtid musalsalkan blog ayuu ka saaran yahay marka waad iga raali ahaanaysaan waxaan leeyahay page
Facebook aan ku leeyahay jirto page-gaas ayaan rabaa inaan musalsalkaas in ku soo daayo 1 minute-ka ayno uu yar yahay marka reer TikTok raala ahaada mar walba reer TikTok raala ahaada walaalahayga su'aalaha ay soo weydiinaysaan mar walba filimkii awa musalsalkii awaad dhahdaan aadan ugu xumaay runtii insha Allah Facebook page ayaan ku soo daayin doonaa mar dhow